Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhay xaafad lagu magacaabo Chelsea Village, kuwaas oo ay degaan gaalo oo u badan yihiin badankooda cadcadaan ah. Chelsea Village waxa ay ku taalaa nawaaxiga Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Chelsea Village waa meel u dhow airportka Aadan Cadde ee deegaanka Xalane, waxayna ka dhisteen xaafad yar oo lagu magacaabo Chelsea Village, kaas oo ay degaan gaalo cadcadaan iyo madow isugu jira. Waxayna ka dhisteen goobo lagu ciyaaro iyo maqaayado iyo kaniisado waaweyn. Chelsea Village waxa ay maalmihii ugu dambeysay qabsanayaan dhulka Soomaaliya, halkaas oo ay kusii fidayaan xeebaha badda Iskool Buluusiyo iyo airportka Aadan Cadde badaha saaran. Haddaba magaaladaas sidaas loo qurxiyey ee gaalada iyo Kirishtaanka degaan, looma ogola inay galaan dad Soomaaliya, waayo waxaa laga qabaa cabsi amni daraaddeed, inkastoo Soomaalida aan la isku halleyn karin sida ay aaminsan yihiin gaalada. Chelsea Village waxay u baas-bixi doontaa diinteena Islaamka, waana sidii ay Falastiin u qabsadeen Yuhuudda. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya arrin weyn uma qabaan arrintaasi, laakiin waa sidii ay Falastiin u qabsatay Yuhuudda. Dowladda Federaalka Soomaaliya arrinkaasi arrin weyn uma qabto in kaniisado laga dhisto waddanka iyo inay gaalo soo degaan, laakiin waa falkii ay ku socdaan Yuhuudda ay ku qabsadeen Falastiin. Haddaba daawade, sidee kula tahay adiga?